ururka mujaahidiinta Somaliland ay ku bohoobeen Sooyaal ayaa maanta munaasabad ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay xilalkii ugu kala wareejiyeen gudoomiyaha cusub ee ururka Sooyaal iyo gudoomiyihii hore. munaasabaddan lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay mujaahidiin waaweyn oo dalka magac ku leh, wasiirro ka socday xukuumadda iyo marti sharaf kale badan. mujaahid xasan ganay, mujaahid suldaan xasan geele iyo mujaahidiin kale oo ka hadlay madasha ayaa ku dheeraaday si muhiimka u tahay in xarunta mujaahidiinta kor loo qaado maadaama ay dalkani geliyeen waqti badan oo ay kaga saareen caburintii iyo dhibaatadii lagu hayay bulshada Somaliland. maamulkii hore ee xafiiska dhexe ee Sooyaal iyo qolada cusub oo waliba aan isku ahaystaan sheegay gudoomiyaha ku xigeenkaba laba dhibo waan ka soo wada baxnay 83 iyo 84 baan isku dhibo waxaan loo yimaadayo qura maalin durbaan la tumayo cod dheer oo leh damac lagu doonayo siyaasi oo leh mujaahidiinta waxaan u qabanayna naafadooda waxaan u qabanayna xaaladooda caafimaad waxaan ka qabanayna noloshooda waxaan ka qabanayna arrinta waxa noogu dambaysa ninka durbaanka tumaya maalinta uu galo qasriga madaxtooyada hatta ma aragno kuma soo khaldamo aqalkii cawlaa ee uu noogu yimi inuu ku soo noqdo xitaa kuma khaldamo xitaa aqalada faraha badan ee dhaadheer ee xukuumadaha kala dambeeyay dhisayeen ee lacagaha badan la gelinayay ee wasaaradaha loo dhisayay maalin qura cawil gaf looma odhanin war kuwaynu ku xaraynay aqaladii cawlcawlaa ee burco ahaa ee berbere ahaa ee hargeysa ahaa ee lahaan jireen badbaadada shaqaaluhu ee aynaan rinji marinin ee albaab lahayn ee daaqad xidhanta lahayn ee aan leyd lahayn ee miis lagu shaqeeyo lahayn ee barjad lahayn ayuu ka dhisno xafiiskeena aan tayayno aynu iska diiwaan gelino wixii dhaqaatiir u baahan oo iska diiwaan geliya wixii shaqo u baahan oo iska diiwaan geliya caruurteena aan ka diiwaan gelino wasaaradaha loo qaybiyo oo loo shaqo geeyo albaab walba aan garaacna markaa iyadoo liiskeenu halka yaalo ila dad baynu ummadkeenu laakiin sida ku jiri kara maynade haddii maalin walba la soo ururiyo la kaalay maantana cabdishanaad baa imanayee shalayna xasan baa joogay yacni magacyuun baa isbedelaya wax macnaa samayn mayno war waxaan idinka doonaynaa fish waxaan idinka doonaynaa aragti waxaan idinka doonaynaa inaad leadership noqotaan qofaan garanayo ma jiro shalay waxay ahaayeen waan garanayaa maanta waxay yihiin talada wanaagsaneed harag inoo seegtay balse waxaan ku goobaaminayaa inaan dembi loo seegin cidda qabta in ay wax ka haysato waxba laynagama haysto innagaa iska haysana qof kasta wuxuu la saftay qofkiisa cadowgaa shaksi aan cadowgiisii la safarin laguma jiro cadowgii aan lahaydeen ee ogeydeen ayaa ninba beeliyey ninba ninka kala toori u dhigay waxaan idinku guubaaminayaa nimayo aan arrintaa harag inoo seegtay aan ka daba tagay gudoomiyihii hore ururka Sooyaal Xasan Maxamed Cabdi ayaa isaguna waxa uu soo bandhigay waxqabadkii muddada uu xilka hayay iyo waliba sidoo doorka firfircoon uga qaatay inuu badka keeno xaqqa ay wadanka ku leeyihiin mujaahidiintu labada saddex xarumood ee dagaalka badan labada Hargeysa guruha gacanteeda ka baxay gacanteeda ku jiraan haddana soo noqdo markii aan xafiiska imaan weyntii hortayga xafiis sabab loo ku wareejin waxaan la iman tirinin laakiin meel laga caruuma soo gaarayno xarumaha Sooyaal markaan waa la wareegaa imi shaqaalaha ka shaqeynaayo waxa 16 qof sideed ka mid ah mushaar bixayeen sideed mushaar bixayeen ma gobolada maanta xarunta guud waxa ka shaqeeya 4 qof oo shaqaale ah oo mushaar ka qaata shaqaalaha aan joogto lahayn ee meelaha ku daadsan ee jilicsan amba naafada amba baarleeska ee mushaar qaata 740 shaqaalaha gobolada jooga ee yara qoon la kunaysan inuu ilaalino ee shaqeyn kale waa 700 hooyada iyaguna hooyooyinka gobolka ah ee aan meel loo ka qaadan jirin waa 220 tiradu mushaar aan bixinaa waxa weeye 244 bishii oo joogto qaata marka loo soo noqdo dhinaca waxqabadka inta aan shaqaalaysiinay hay'adaha
dowladda ka shaqaalaysanay waa 285 inta aanu baaris caafimaad oo bilaash gelinay waa 350 daktarka weyn ee Hargeysa ayaanu ka baarnay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha cusbitaalka Hargeysa oo dadka ku baaray si lacag la'aan ah si kartida ku baaray askar aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xarunta heerwan waa xarunta dhimirka ee dhakhtarka weeyaan dadka aan ku xareeyna xafiiska ka baxay inkastoo ay maamulaan odayaal ka mid yahay Cabdisalaam ka mid yahay Cabdiraxmaan Ali Farax ka mid yahay inkastoo qolso maamulaan ee fanka gacanta ugu hayaan annagu xafiisaha waynu gudbinaa war soo cadaynaa waxaanu geynay 470 qof oo dhimirka xanuunsanaya ayaan geynay waxaa jira mujaahidiinta danyarta iskuullada iska bixin kara ardayda fiiga ka bixin karahay dugsiyada sare ee gaarka loo leeyahay ee lacagta qaaliga lagu dhigto waxaanu geynay 620 arday oo ka baxay dugsiyada sare dhameeyey jaamacadaha waxaanu geynay fiiga ka baxina aanu ku boros garaynay 754 arday baa jaamacadaha ka baxay aanu geynay dadka xifradda fiigiisa gacanta bartay waxa weeyaan 4150 qof baa ka baxay taan dadka bartay sida wax loo qoro ama wax loo akhriyo waxa weeye 1867 qof gudoomiyaha cusub ee ururka mujaahidiinta Sooyaal Cabdirasaaq Jaamac Xuseen ayaa isaguna waxa uu qodob u dul istaagay ujeedooyinka looga baahan yahay ururka Sooyaal waxaana uu soo bandhigay qodobo uu kor ugu qaadayo maxay Sooyaal u shaqeeyeen maxay jimciyadani ay u noqotay fadhiidka waa inaynu horta isweydiinaa mujaahidiinay waa inaynu isweydiinaa maxay xafiiskeenu u shaqeyn waayay uu horumar u gaari waayay uu muxuu hayo u shaqeyn waayay waxaan aanu qabaa inuu u shaqeyn waayay horta waa khilaaf number 1 حسن عبد محمد ما أنت كسي دقيق حلك يا عبد الشمال ما أنت لا صاري هرت واحد لو حسوك لنا يبتدو مشاهدين هذي أيضا شقين وإذا خلاف يسكدين وإذا خلاف يسكدين واحد لقيا ما كان مكان خطر إنه الحين كان يقول يجيو إنه يروح بلاوته ولا لا وركنا حقولنا قصوا قلي ومحوها وهلك حوش كبلاوته وتخلاف gabagabadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland Mujaahid Marwo Yurub Abiib Cabdi oo labada gudoomiye xilka u kala wareejisay ayaa soo bandhigtay muhiimadda ay xukuumaddu siinayso ururka Sooyaal ee mujaahidiinta Soomaaliland ay ku midaysan yihiin horta dad markay dagaalamayaan ay dal xoreynayaan run ahaantii kumay tala gelin intay dal xoreeyaan inay noolaadaan oo ay fooqyada dheer galaan laakiin waxaad markii hore ku tala gasheen inagu waynu sogeynay dadka idinka dambeeyay inaad gumaysiga ka furataan idin kula dhibataan soo maa intii soo badbaaday laakiin waxaad mudantihiin in laydin ilaaliyo ilaahayna waxaan uga baryayaa intii dhimatay inuu ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo halganku kumaynu khasaarin halganka haddaan idinku ay jiraan inaad dayacadtihiin oo xaqiiqa oo ay tinuufo badan idinku meersan yihiin laakiin hadafkii aynu lahayn waynu gaadhnay qaar badanna mas-uuliyiin weyihiin oo anigaygan ka mid ahayde ma wada qateen saraakiisha ciidamada qaranka hogaaminaya ee ilaa iminka qaranka difaacaya waa ogtihiinoo dee hebel inaan soo koobi karayno waa wada taliyo guuto idinku waliba qorigii waa dhigteen iyagu wali sidii bay ugu jeeqaareen halgankii wadankuna wuu dhammaanin meelaad ka calaacashaana ma joogtaan oo laba madaxweyne oo sanabtii ayaa kursiga iska bedelay markii horena Axmed Siiraay ayaa ku fadhiyey iminkana Muuse Biixi Cabdi ayaa ku fadhiya magacu waxbuu kuugu filayay xitaa haddaad ku qado wadankii baad haystaa baad oranaysaa markaa maanta calaacalinooma ege madaxweynaha maxaynu ka doonanaa oo Sooyaal sidaynu u dhaqaajinaaba halkan inoo taala anna waxaan idinka balan qaadayaa anigoo afkii xukuumadda Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha afkiisa kaga soo qayb galay oo ka wakiila gurihiina ka cabateen ee tidaahdeen dudumooyin bay noqdeen inaanu dhisi doono haddii ilaahay lahaa isla markaana ay u eegan doonaan noolalka baxsane ee ku xiga anaa idinka balan qaaday inay Sooyaal u eegaato Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Shiglan
shabakada caalamiga ee Harwanaag News Hargeysa.